bulshada ilmiga ka qabtan lahayn damiru noxo bulshada ilmiga ka qabtan lahayn بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka maxaa karona wixii la sheegay damiru noxo bulshada ilmiga ka qabtan lahayn damiru noxo bulshada ilmiga ka qabtan lahayn danayste aan dirnahayn danaha ummadiyo dalkaba doolarkaaga ku bedelaanayaaga qofku baxaad barnaamijka maxaa karona wixii la sheegay alaaba waxaan ku soo qaadanaa arrimaha ugu hadlaynta badan ee toddobaadkaas ka taagan guud ahaan dalka toddobaadkan sida aad la wada socoteen waxaa baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sarintaba la horgeeya ajendo ku aadan go'aan xukuumaddu ay ka qaadatay sarkaal sare oo ka tirsanaa jabhadda onelef kaas oo lagu wareejiyey dowladda etoobiya haddaba golaha shacabka ayaa toddobaadkan waxa uu isla qaatay in guddi loo saaro arrintaasi oo dib u egis ku soo sameeya amaba waa xal ka soo gaara sida arrintaasi loo arko ayaan ku falanqayn doonaa iyadoo ay nagala qaybgelayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxgarad soomaaliyeed sidoo kalena bulshada aan siin doono ra'yigooda ee arrintaas ku aadan waxaa martida barnaamijka nagala qaybgelaysa ka mida xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa nagala qaybgelaya ugaas maxamed weli ugaas iyo sidoo kale nabadoon cali diiriye khilaawe anigoo jimcaale ayaa idinla socodsiinaya farsamaduna waa saaxiibkay maxamuud faarax sidow logic waa mar kale iyo barnaamijka maxaa karona wixii la sheegay tahay mar kale saaxiibayaal jimco wanaagsan barnaamijka waxaad toos ugala socotaan barta aan facebook ku leenahay shabeelle media network sidoo kale waxaad ka dhegaysanaysaan bogga aan internetka ku leenahay ee shabeellenews.com ama radio shabeelle.com oo meel kastoo aad joogtaan shanta qaaradood ee caalamka aad toos nooga dhegaysanaysaan gudaha FM 101.5 megahertz aad naga dhegaysanaysaan oo muqdisho iyo gobollada ku dhowdhow sida shabeellooyinka aad naga maqlaysaan cadaado waxaad naga dhegaysanaysaan waa shabeelle qaybteeda ay ku leedahay xarunta kumeel gaarka ee galmudug ee magaalada cadaado gobollada dalkana sidaas oo kale ayaad nooga maqlaysaan waxaan markaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka brofesor maxamed cumar dalxa oo golaha shacabka soomaaliyeed ka tirsan xildhibaane arrintan ku aadan guddiga aad u saarteen oo muddooyinkii dambe si weyn loo hadalhayey go'aankaas aad qaadateen maxaad is leedahay waad u doorbideen bismillahi raxmaan raxiim jimcaale adiga iyo idaacadda shabeelle guud ahaan dadkana dhegaysanayo meel kastoo ay joogaanba gudaha iyo dibadda marka ugu horeysa waa idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaanta islaamka iyagana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan leeyahay odayaasha hogaamiye dhaqameedyada sharafta leh ee khadka igula jira iyagana sidaas oo kale ayaa aan leeyahay waasiyada iyo nabadoonkaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu haddaan
maasha allah haddaan jawaabta u imaado waa tii dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan arrinta maaragtay sarkaalka looga hadlayay maaragtay siyaabo kala duwan laakiin maalinta golaha shacabka isaga fursad u helay inuu ka doodo aaraadii kala duwaneed markii dooda maaragtay guddoonku isaga uu dhegaystay uu rogrogay dhinacii loo batay ayaa waxay noqotay in guddi loo saaro arrintan maadaama ilaa iyo hadda wax sharci oo waafaqsan oo la dhihi karo wuxuu noqon karaa saldhig ama gundhig wixii baarlamaanka uu soo saari lahaa maadaama baarlamaanku isagu uu yahay waxa uu madba maaragtay uu ka duulayo ama go-aamada uu gaarayo loo baahan yahay inay ahaadaan wax sharci ah oo aanan noqonin arrimo siyaasadeed iyo kuwa xaala amniya iyo inta fara badan inkastoo aanan runtii laga maarmaynin in arrimahaas oo dhan la eego dib u eegis lagu sameeyo laakiin baarlamaan waxaa intaas oo dhan uu doonayaa inuu u cuskado qodob ama sharci marka maadaama shuruucdii waddanka iyo tii jinsiyadaha iyo tii maaragtay muwaadinka meelaha qaarkood ama qofka aan maaragtay labada haysta maaragtay dhalasho waxaasoo dhan markii dhinaca weliba loo rogrogay iyo xaaladda waddanka qiimeyn badan lagu sameeyey iyadana dhinac kasta qof walibana aragtidiisa uu meesha isaga uu doono asigoo xore ah uu cabiray hadda waxay noqotay in sidaa laga badin waayo si guddoonkana uu qaato fikradda meesha loo badnaa uu guddoomiyaha baarlamaanka arrintaa uu ku dhawaaqo dabadeedna isaga hadda laga sugaayo ad hoc committee inuu soo magacaabo oo sida ballanta hadda ay tahay sabtidana magacyada ragga uu maartay isaga iyo ku-xigeenadiisa ay halkaasi ay usoo bandhigaan in baarlamaanka guddiga uu noqon doono kan hawshaasi la filayo inuu soo qabto waa tahay waxaan siinayaa ugaas maxamed weli see idinla muuqdaa go-aanka xildhibaanadu arrintan ka qaateen بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أولا وحمد اسكال الله سبحانه وتعالى ثم وحنمها العلين إياه إذا عاد الشباب هي شقالة هذا وضعه وجوه الرئيس برنامج كهذا هي حلوانك هي نوردونك أيضا وحنمها العلين إياه dhammaan ummadda soomaaliyeed intana dhegeysanaysiin intana dhegeysanaynin baan umahad celinaya ayagana intaa kadib anigu waxaan islahay barnaamijkan dadka ninba sibuu isaga arkaa laakiin waxaan la dhaafi karin baa jira waxaan la dhaafi karin waxaa weeye hadday dadkii nidaamkan hadda u xil saarnaa yidhaahdeen barnaamijka waanu qeexaynaa maanta oo guddigaasi wixii farsamaha buu soo celinayaa ilama dilno aniga shacabkuna wuu sugahayaa waxa uun xun waxaa weeye oo dhibka ka iman karo in nidaam oo caddaynaya inaan muwaadinkaa la dhiibi karin wayna caddahay oo way jirtaa oo muxuu ahaa sharciga islaamka iyo dhaqankii annagu aan lahayn iyo kii dastuurkii aan lahayn intaba way ku qoran tahay inaan la dhiibi karin qofkaas taas unbaa dhib ka iman karaa haddii la siyaaseeyo oo dhanka kale loo rogo baa dhib ka iman karaa laakiin shacabku waxaan isleeyahay barnaamijkaas indhahana wuu ku hayaa xurmada iyo tixgelinta ayagu ay u leeyihiin in barnaamijkaas si wacan intay u wadaan looga dambeeyana waa looga dambaynaya laakiin waxaan ku caddayn karaa in barnaamijkaas shacabku uu aada indhaha ugu hayo runtiina aada looga xumaaday arrinta muxuu ahaa qalbi dhagax aanan rajaynayno wax qalbi dhagax in la dhiibo keeni kara ama caddayn doono ama adilo u dhiibi doono inaan la keeni doono ilaa waxa meesha yaalla oo waxaan isla wada ognahay oon isla naqaano ama hadda shaqada la hayo xildhibaanada waan uga dambaynaynaa waxaana rajaynaynaa sida ay tahay oo nidaamka muxuu ahaa sharciga islaamka iyo caqliga saliimka iyo wada dhalashada iyo soomaalinimadu intuba ay sheegayso xildhibaanadu inay ka soo baxaan ay soo caddeeyaan baanu rajaynaynaa arrintaa iyada
waa tahay ansiyo nabadoon cali diiriye khilaawe oo isna ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed nabadoone haye بسم الله الرحمن الرحيم بعد الشباب يو حلمان ضلحة يو عبد الولي وسلاميهين ومدى الصوماليات نمغلى إذا ذلك يدبدب شرطة يكون سلامة الإسلام يكون سلامي سلام كدب ujeedada iyo nidaamka meesha aan soo nimid hadii aan oraadayda ka dhiibto horta midda koowaad horta waxaan ninka la yiraahdo axkara ninka la dhiibay oo la leeyahay waa la dhiibay horta anigu waa ka xumahay salaadiin ahaan iyo soomaalnimo intaba waa ka xumahay laakiin waxaa hadda jira oo macnaha muranka badan ee hareeye Soomaaliya iyo Muqdisho iyo golaha shacabka oo isna muran fara badan hawshaas oo ay waayaan bay ka dhac jirtay ka bacdina la yiri guddiga loo saaray horta waxa dhibaatada ka jirta dhagax kaliya ma qaara dhibaataysan magaalada Muqdisho qaara kulwa go'an qaara yaala dhulka Soomaaliya oo dhibaato fara badan ku hayda qaara xabsiyada Soomaaliya ku wada xiran Soomaaliya waxay la moodaa maxaa kulmiyaa la yiri weerta iyo nidaam maxaa kulmiyay sababtoo ah uma Soomaaliyeena xabsiyada badan dalka dibadiisa ku xiran wax ka hadlaya may jiraan أنا أرنتها سبحانه الدريمي ما دام الناس الصوماليين اللي ديمورتان وكحوماي لكن وحال الرباه وحال ولا غلطنا إن لو صدره ده إحنا لو صار مريو أي يعني يلموا ده جديد لكن مركز سكلا أو فيريو مركز الرباه إن هو اللي يري مركز تقدر له إن باشا الله سكر كراي أنا وعن دريمية وحال الله أي أرنتها ده أنا وكحوماي لكن يلا سياسيين oo dad dal leh aysan baasha ka badin oo sababtoo ah 27 sano maalin meel soo fadhiyay waxaan soo dalka Soomaaliya anigu Muqdisho inta badan ayaa jiro Soomaaliya kama bixin dadka baasaboorada dibadda kala yimid oo siyaasadaha soo dhacay oo Soomaaliyeed anigu ka mid nahay laakiin waxaan leeyahay wax kasta way u baahan yihiin in xalka laga hado hadii hadda loo yiri guddiga loo qabaana anigu guddigaasu in lagu soo dhaweeyo moodaa sababtoo dad badan ama xukuumaddu shacabku isla fahmi waa in guddi loo bixiyaan waa soo dhaweeyaan waa tahay ma qabtaa ugaas maxamed weli in arrinta la siyaasadeynayo oo aad loo buunbuuninayo iyadoo la ogyahay taageerada dawladdu ay ka haysatay shacabka maadaama ay tahay dawladdii ugu shacbiyadda badneed marka loo eego dawladihii soo maray xilliyadii ka dambeeyey burburka هردانو دولة waxaan siinayaa ugaas maxamed weli weeyaan aniga waxa la weydiiyay barnaamijka oo la siyaasideyn karaa waa suurtagal laakiin waxa hadda meesha yaalay ma aha wax la dhihi karo si waa la siyaasadeynayaa qofku waxa la rabaa in waxa iswaafajiyo dibka taagan asagoo u jeeda qof walaalkiisa qaylaawe iyo aniga iyo dalxa iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa qalbi dhagax iyo adigu iyo kuwa kaleba isku mid baan ninka waxa ku dhacay qof kasta inay u taagan yihiin waxaan qabaa waxa markaa taagan oo laga hadlahayo ayay muhiimadu saaran tahay warku si uusan nooga hadlaabin oo waqtiguna nooga dhimin waxaanu taaganahay waa qalbi dhagax iyo barnaamijkiisa baan kor taaganahay inaanan ka wareegin oo marka aanan ka gudbin horta waan soo jeedinayaa waan ku talinayaa qalbi dhagax in la siyaaseeyo iyo waa la siyaaseeyey la yiraahdo ayada nafteeda ayaa siyaasayna asaga barnaamijkiisa la siyaasaynayo marka waxaan isleeyahay barnaamijkaasi sax maaha waa barnaamij khalada sida uu sheegay qaylaawe waanu ka xunahay waana ka xumaan doonaa ilaa xal laga gaarayo barnaamijkiisa dawladda maanta joogtay waa shacabka soo doortay sida hadda u sheegtay shacabkuna rajo badan buu ka qabay rajada laga qabay iyo doorashada loo manhaano la daba ordayay ma ahayn waxyi inuu oo la yidhi waxyi idin amrahayeen raacana la yidhi ma ahayn ummadda Soomaaliyeed
dadka in wax la wadasiiyey oo bini aadamka adduunka lagu qancin jiray adduun lagu qanciyeyna ma jirin soomaalidu way gubatay rajadii soomaaliya uga dhex muuqatay madaxweynaha la dooranayay taageerada hadda waa dawladdu way ku weyday laleeyahayna rajadii baa soo yaraatay marka xaruntii muxuu ahaa soomaaliya laga qabtay nin la yidhi waa onelf kiisaba aan u dayno onelf waxay joogtaa caalamka dhan bay joogtaa maraykanka ugu xoog badan adduunka way joogtaa kaarar bay wadataa waddankan ugu dhegan oo etoobiya waxaan rabaa kenya yaa 2 nin laga afduubay oo si tuugaa lagu qaatay oo etoobiya ku qaadatay waa la soo celiyey waa loo dacwooday kenya dacwootay caalamkii wuu kala qaatay waa la soo celiyey way degan yihiin kenya ugu dhegan bay degan yihiin waxaa marka nasiib darro ah 2 arrimoodba waa nasiib darro baarlamaanka iyo golaha sare labada golaanan ka sugaynaa haddii alla waxay ka soo saaraan waxaa nasiib darraa kow nin soomaaliya oo muwaadin ah oon dalkan dembi ka gelin intii la qabto in la dhiibo oo etoobiya loo dhiibo waa nasiib darro waxaa nasiib darro kale ah oo rajadii ummaddan bedishay intay dawladdii fadhiisatay inay soo saartay go-aan la yaab leh oo ninku inuu dembiile yahay ahaa oo inuu shabaab ka tirsan ahaa ninkaas la yaqiinay oo bire biyaana fadhiyey oo ceelisha biyaha fadhiyey oo ceelgaarta fadhiyey oo la yaqiino labada reer u degan yihiin oo 3 saniya wax la jira fadhiyey xasan la kawsaday waa wax ayaan daraa oo la wada yaqaano waxaa nasiib darro sii noqotay inaan etoobiya ka maqalno in ninkaas loo dhiibay dawladdii hadli weyday oo muddo ay aamusnayd mucjiso kaley noqotay arrimahaasi waxay sababeen taageeradii dawladda iyo kalsoonidii la qabay inay dhimato waxaana dilay dawladdaa dishay arrintaa ayada ah madaxweynuhu ugu horeeyo ra-iisul wasaaruhu uu ku xigo golaha wasiirada ayagaa dilay qof lagu eedahaya male rajadii dawladdan laga qabayna way daadegtay oo hoos bay u daadegtay waxaan rajaynaynaa rajadii ummadda inay soo celiyaan waxaan rajaynaynaa rajadii ummadda inaysan dilin ummaddu dawlad bay u baahan tahay ummaddu waa diyaar ummaddu daday adeecday laadahay ummaddu dad wax u qabtay laadahay ummadda dad dullaynaya oo aan kor u qaadaynin oo sharaftiiyo karaamadii aan soo celinaynin oo midnimadii ummadda aan soo celinaynin ma daba istaagi karo qabiil baanu ku baaba'nay dana gooniyaanu ku baaba'nay ururaanu ku baaba'nay waxaasoo dhan waxaanu soo ogaanay inayna wax micnaha lahayn marka qof qabiil loogu danayn doono ma jiro qof dana gaara loogu danayn doono ma jiro qof nimadanada iyo sharaftanada iyo karaamadanada soo celinaya qofka unbaan daba taagnaan doonaa intaan ka helaynana waan daydaynaa haddii aan ummadda soomaaliya haddaan xildhibaan dalxa ma kuu muuqataa rajo xumada uu muujinayo ugaas maxamed weli horta aragtidu in lagu kala duwanaado mushkilad malaha waa mid dhisan tahay nolosha qaab ahaan bini aadamku in weliba waxa waaye sibuu wax u arkayaa nin walba aragtida uu leeyahay ayuu maaragtay dareenkeeda uu gudbinayaa soomaalidu nin xaaja toosan baa ninna tuur la leh watay dhihi jirtay aniga runtii anigoo aanan ka ambaqaadayn labada oday sida maaragtay aragtida nin walba meesha u abaarayo laakiin sida guud ahaan ay u fakereen ragga aan wax la wadaago rabtay in maaragtay guddi loo bixiyo iyadoo mustawaha aragtiyeed lagu kala duwanaan karo ama iimaanka xaaladda taagan nina uu arkayo waxyaabaha furuucda ah ee markaa taagan nina uu ka eegayo dhinaca kale oo maaragtay kulliyaadka sababtoo ah marka adiga wax qiimeyn la sameynayo adduunka xaaladaha dadna maaragtay waxay ka bilaabaan qiimeynta waxa la yidhaahdo kulliyaadka oo waxa muhiimada ee dadka iyo dalka iyo diinta oo isku jirta maxaa wadciga ee markaasi taagan qiimeynta haddii loo fiiriyo waxyaabaha taagan ee ay sameynku yeelan karaan iyo wax markaasiyaadka haddii qayb ka mid ah maaragtay intaas ee ka mid ah ama shacbigii guud ahaan ama qaranimadii dawladnimadii guud ahaan ama diintii maaragtay iyada marka waxaa marka qayb ka mid ah marka iyada nin walba siba nin baa qayb imaanayo oo ka tagayo kuliyaadkii sida saameyn ugu yeelan karto nin baa maaragtay kuliyaadkii abaarayo oo hadda marka horeyso haddaana wadankii dhanbo isaga uu yahay iiban
maxaa laba la socdaa wadanka dhanbaa dhiiban ayaa maanta usoo baxayso waayo labada nooc dadka bani aadamka Soomaaliya maanta annaga aan marka isdiimaynayn ayaa waxay tahay lahaanshaheenii sharafteennii karaamadeenii ma baabaxday ma luustay ma burburtay maxay maaragtay Soomaaliya maanta iyadu maanta ay leedahay amaanta iyada ay dowladnimadeeda ku salaysan tahay haddayba sidaa jirto laakiin waxaa ka muhiimsan ahaanshaha horta maxaa tahay inaad isgaratid waayo markaad ahaanshahaada uu qiimo yeesho ayaa ahaanshahaadana qiimo yeelanaysaa ahaanshaheennii baan qiimo lahayn inagoo dhan ba waxaan nahay dad kafiil laga yahay oo dhammaan tallaabaday qaadayaan iyo waxa ay qabanayaan iyo waxa ay samaynayaan iyo waxay ku dhaqaaqayaan kafiil laga yahay nin kafiil laga yahay muxuu yahay muxuuse difaaci karaa asaan isdifaaci karin annaga hadda waxaan mar weliba aan aragnaa Soomaalida dhibaatada tan ee maanta hadda laga hadlayo oo ka waaweyn baa indheena soo qabta dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa dhacday in ayagoo loo jeedo inta la kaxaystay haddana Itoobiya la geeyey intii qaar lasoo haytay lasoo daayay qaar xilalkoodii ayagoo aanan Soomaaliya nooga dega aanan dhihin in la yiri socda mid diyaarad raacay mid ka lugeeyaba tusaale haddaan soo qaato Cumar Xaaji Masala Itoobiya ku xidhnaa haddana Soomaali buu dadka ugu magac leh buu ahaa tusaale uu soo qaado ma aragtay markii ugu dambeysay Cabdicasiis oo nin sarkaal ah oo ma aragtay ayaa la maasay Itoobiya intaas ku xidhnaa bari Hiiraala ugu dambeeyay Maxamed Dheer asoo silsilad weyn ku xiran oo ninkaad ogeydeen oo ahaa ayaa baydhawna lagu soo tuuray anagoo joogno oo xildhibaano leh oo madaxweyne joogo oo xukuumad joogto waa ka hadli kari weyn waxyaabaha faraha badan ee jiro madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf asagoo waqtiga dhamaysanaa liir iskaga degsaco oo uu iska baxay علي محمد جيدي بقى كيوري بيدا وأنا وجوجنا ديارة أنت لو كان لي حير ورئيس الوزراء لماذا هذا مش في كويك تايس عزل السعود ديارة أسرع وعكدم بمدعوينا هذا ما أنت نوجو مدعوينا فرماجو إنه وسيلنا حمر أو بسون عد بوشيكا كنت أنا نجرين وإذا ما دي صومالية دي مشار وبالله ومدعونا فرماجو ما أنت اللي يجي هذا ما يشوف كسبري أنا جو وجينا لي رئيس عزل السعود والسعودي فرصة أنا محن هاي مرخا يا marka waxa aan nahay aan ogaano madaxweyneyni aan cishan weyni ra'iisul wasaarihii oo anaga aanan baxdiin baan ayaan dhii weyna wariya anaga oo aanan sharci oo nidaam aanan ku erin ma dhigi kartaan bax yani waxa yaabaha badiyada loo fiiriyo ay u baahan tahay Soomaalidu inay istiimayso intaan la qiimeynin ayaa waxaan bilow ma waxaan curud ma oo waxaan bilaabanaya ma suratay ma marka aniga waxaan qabaa labada baasaboor leh oo horay baarlamaanka ooga sheegay mid British wata mid Mareykan wata iyo mid Australian ah iyo mid Scandinavian ka soo jeeda haday beri ay yiraahdaan ninka baasaboorkeena British ka haysta ayaa Birmingham dambi uu ka soo galay ama midka Scandinavian ka haysta ayaa hadii la yiraahdo wuxuu dambi nooga soo galay ma aragtay Denmark iyo Norway iyo Sweden waa u baahanahay hadii la yiraahdo asagoo halkan golaha shacabka ka tirsan ama fulinta ka tirsan oo wasiir ah اللهم حتى ما حدا سيكون هاي باسبورات أجنبية أيانا هيسنين وحام كدفاعنا على كسومالية الشنط الجيسور لأمد بك ترجمة طل مقرطي هذا جيبوتي تاي هذا سومالي قلبيت أي تاي هذا سومالي ذا ما أتوقعي بري إكيني NFT أي تاي مرك الله بعد حدا أنا هالكانوا أنا قلبت كنا لقوا كلام ما في يعني سيء وبدو أبو هذا إعلان هاي مرك الذي ماذا كدق ولا بإنسان دافع كرنا هذا ما عند جيبوتي ويل سومالية برلمان كي كجران باسبور جيبوتيان ده وقت جيبوتيان كسوتيرو هذه بين دولة جيبوتي مرة ولا لا عن هاي سومالي لا أصلا هاي دم بي أنت أقول إترا دولة جيبوتي أنا لو كانوا نكاسي دولة سومالية محقق فورا تن ما أنت حمر كريسان هذه سلا صوت كله وقوي بري إنن غاريسا يوم أرتي أسيغا أوجو oo xildhibaanada maanta ku jira baarlamaanka Kenya ay yiraahdaan dambiilo waa in ninkaasi halkeen ee baarlamaankooda uu soo saaro waxa baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliyeed uu difaaci kara oo annaga noo xeeraysan oo noo yaalo hadii kal Soomaali galbeedna sidaas oo kale xidigta u taagan maxaan ka yeeli karnaa wax maanta inoo qoran male horama dhameeyno ay hadda Soomaaliland oo aan u jeedo 32 shay bardaweyna Soomaali abu tabasiirada taageeri jirnay oo 72 dagaaladii aan galnay ee Soomaali lagu baabay ayagii oo aan hadda la leeyahay waa argagax ay ahaayeen war maxaa horta marka ugu horeyso annaga markaan fiirino annaga sharci iyo xeer iyo taariikh iyo nidaam
waxa aan ahayn iyo waxa hadda aan nahay farqi waxaan samayn karnaa go-aankeen qaadan karnaa waxa loo baahan in la rogrogo waa la caroodo oo nin uu yar qof ugu jeedo dadka dhan kulli waa wada yani xanuunsanayaan qof waliba Soomaaliya dib loo geysto kaligiis ma qalbi dhagax intaas oo dhan aan soo tiriyay in kale aan la ogeyn suuq madow maarta email cidla ay meeshii ka baxaan ma ka hadli karnaa awooddeed ma leenahay maamul goboleedyada tirada badan mid waliba iskiis hadduu go-aan uu qaado gacanta uu ka saaro ciduu doono allahuma Israa'iil xataa noqoto maxaa dawladda dhexe ee Soomaaliya awood ay u leedahay inta ay jirto ciidan ma samayn kartaa talaabo ma qaadi kartaa maxay iyadu laftirkeeda hadal inta iska qayliso sidaan oo kale war baarlamaan inta go-aan aan soo saarin imisaa socon weydii maanta aan isfiirino horta wax aan nahay aan is eegno kadibna markaasi waxaan ku hadlayno markaasay jirtaa hadday tahay mid ducfi ay tahay iyo hadday mid raganimo ay tahay waa tahay nabadoon khilaawo haye adiga ma isleedahay waa jirtaa rajo xumo shacabka ay muujinayaan ma isleedahay horta niyo waxaan kuu sheegayaa horta midda anigu uu yidhi awgaas cabdiweli midna waa iskula ujeedadeena way tahay midna waa uga bedelana horta in maaragtay wixii dhaliila la sheego waa sax midda labaad dawladdu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka jawaari oo madaxda u yahay horta dhagax arintiisu ay taallaa hadda baarlamaanka anugu laakiin shacabaa kuu saaran shacabku meel uu ku aruursan yahay ama mowqif uu ku midaysan yahay male nin kasta oo dan leh ama danihiisa raba inuu ka dhacarka ayaa shacabka uskada shacabkuna wuxuu ka mid noqday qodobada dastuuriga ee la isticmaalo ayuu ka mid noqday waxaan ognahay arrinta jirtaahu waxaa leeyahay orgigu baroorta ka weyn arrinta jirtaahu inaysan dhagax kaliya dantiis in laga shaqeeyahay aysan ahayn dana siyaasadeed dad kale in ay bahashaan karkarinayaan shacabna aysan u daneeyeen intaas aanu horta aaminsanahay ma fahamta sababtoo ah waxaad dareemi kartaa dad hamino dhowa dhagax arrintiisa aad u karkarinayay haddana aad moodid aysan ka soo dhex muuqeen shaashadaha u dagaalamaya dhagaxna kaliya maahane arrin siyaasi qof kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliya wuxuu rabaa hadduu shaashada iska waayo inuu raadiyo ninka markaas meesha taagan inuu dhaliil u raadiyo soo uga soo muuqdo anigu fakarka cabiraya kaas uu yahay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dadka u talinaya hal laga daayo danaha goonida ah ee shakhsiyeed yaan la siyaasadeen shacabku looma ogola hadda golaha shacabka oo dalka ka mid yahay waxaa suurtagala dad badan oo inaysan soo saarin shacabku soo wada dooran badda labaadna shacabka u doodayna ay leeyihiin anigu waxaan ogahay dalkan inaana ka bixin ilaa wadwaris ilaa dawladihii haddana soo maray waxaan karanayaana dad iska dhacri ku waayay shaashada inay yihiina dareemaya waa tahay dhegeystayaasha iyaguna waa siinayaa ra'yigooda iyo waxgarad kale oo aan isleeyahay waxa ay cabiri karaan ra'yi wanaagsan sidoo kale siyaasiyiin barnaamijka aan jecelnahay in iyaguna ay nagala soo qayb galaan qaybaha dhexe iyo qaybaha dambe dhegeystayaasha toos waxay nooga soo wici karaan 85 lambarka gaaban 488 sidoo kale ra'yigooda ayay noogu soo diri karaan qofka kale waa qofka ugu horeeya ee qadka ku jira dhegeystayaasha ka mid ah halow assalaamu calaykum calaykum salaam magacaada walaal magacayga maxamed abuukar oo idinkala soo hadlaya degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa codkaas sare u yara qaad idaacadda shabeelle horta waa mahad celinaya waa tahay qofkaasi qadka ka go-ay qofka xiga halow
umadiyo dalkaba doolarkaaga ku bedelaanaya qofku baxaad looba dhahaa danaysta aan dirnahay danaha umadiyo dalkaba doolarkaaga ku bedelaanaya qofku baxaad looba dhahaa ogaamiye daacaduhu qabyaalada diidayo dejiya soomaali weyn kanoogu dejiya soomaali weyn kanoogu waa tahay saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay dhegeystayaasha waxaa ra'yigooda ay ku cabiri karaan lambarka gaaban ee 488 ama sidoo kale 85 oo toos ay noogala soo xiriiri karaan waa tahay dhegeyste ra'yigiisa noo soo qoray waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waa cabdimahad oo jooga waxa uu leeyahay galmudug xildhibaan dalxaw oon ku raacsanahay fikirkiisa qalbi dhagax oo keliya maahan soomaali badan ayaa sidaa nooga maqan ayuu leeyahay assalaamu calaykum ayuu yidhi dhegeystahan wacalaykum salaam waa abubakar oo jooga dayniile walaal qalbi dhagax waa shaksi ee dadka danaha siyaasadeed ka leh hurinta arrintaas waxaan dhihi lahaa dowladda ha laga dhaafo fawdada waa mahadsantihiin ayuu leeyahay waa tahay qofka xiga halaaw hello darbiyada gajadu kulay darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya dariiqyada caruurta daadsan darbiyada gajadu kulay darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya da'yartaan dambiga lahayn dantoodii la dahyacaye daryeel la'aantu seedulayn da'yarta aan dambiga lahayn dantoodii la dahyacaye dihalkugu seeduloonayaan daryeel la'aantu seedulayn ogaamiye daacaduhu qabyaalada diidayo dejiya soomaali weyn kanoogu dejiya soomaali weyn kanoogu daacaduhu qabyaalada diidayo dejiya soomaali weyn
noogu dee dejiya soomaali weyn dhulka noogu dee danayste aan diirnahay danaha ummadiyo dadka waa doolarka ku bedelaanaya dufku baxaadu looba dhahaa hogaamiye taacadoho qabyaalada diidayo dejiya soomaali weyn dhulka noogu dee dejiya soomaali weyn dhulka noogu dee hogaamiye daacadoho qabyaalada diidayo dejiya soomaali weyn dhulka noogu dee dejiya soomaali weyn dhulka noogu dee darbiyada gajadu kulay darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya dariiqyada caruurta daadsan darbiyada gajadu kulay darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya darxumadu daashataye ugaga la hoyanaya waa tahay saaxiibayaal naga raali noqda qadarkaasi yar oo markaasi cillad xagga isku xidhka telefoonnada ah markana waxaa noogu soo biiray aqoon-yahan madoobe ow jaamac cali oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo boqor nuur maxamuud afrax dhegeystayaasha iyaguna aad bay fariimo noogu soo dirayaan telefoonkan usoo buux dhaafinayaan mawduuca oo aad u xasaasi ah madoobe ow jaamac cali aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaad ka mid tahay go-aanka xildhibaanada baarlamaanka ay qaateen ee ku aadan in guddi loo saaro arrinta ku aadan ee go-aankii xukuumaddu ay ka qaadatay sarkaalkii onelef sida uu kula muuqdo halaaw madoobe ow jaamac cali halaaw madoobe
dhayaga dufku baxaad looba dhahaa dufku baxaad looba dhahaa waa tahay weli saaxiibayaal barnaamijka maxaa karona wixii la sheegay ayaad dhegaysanaysaan markaan waxaan jeclahay boqor nuur maxamuud afrax inaan siiyo waxaan filayaa dabcan aqoon-yahan madoobe in telefoonka aanu ku jirin qadka madoobe may maqashaa waata ku noqon doonaa boqor nuur haye hore u gal ra'yigaada arrintan ku aadan bismillaahi araxmaani iraxiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aan leeyahay horta in shaksi soomaaliyeed oo muwaadin ah Ethiopia loo dhiibo maantay waxa weeye geerida nool bay ka mid tahay asagoo nool ayaa la duugay xaquuqdiisiina lagu tuntay annagu waxaan ka hadlayno waa go'aanka baarlamaanka ee guddigu ay u saarayaan waxa weeye in adeer Soomaalidu waxay tiraahdaa xagala geel wax gunti la geliyo waa ka weyn tahay waxaan leeyahay xukuumaddu waa ku fashilantay baarlamaanku iyo ku fashilmin howshan waxa weeye shacabku si toos ah ayay u soo fiirinayaan waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa weel gowrac dib ku quustay haddaynu ka aamusno oon ka shibniraahno oon guddi baa loo saaray uga aamusno waxaan uga aragnaa shaksi kasta in nooca loo isticmaali doono guddi hoose oo baalka la yiraahdo hoos dadka u gowraca in baarlamaanka dhexdiisa laga samaysanayo ma aqbali karnaan leenahay waana khalad in guddi loo sameeyaa waxa weeye laba qodob ayaa meeshaan taagna shariicada islaamka waxa weeye ma ogola in shakhsi Soomaaliya ama muslima gaala loo dhiibo dastuurka annaga noo degan oo 60kiina in shakhsi Soomaaliya amxaara loo dhiibo ma ogola marka waxaan leeyahay guddi baa loo samaynayaa waxaan u arkaa usaangalid waxa weeye marada ciida raadkiisa ciida lagu xaarayaa ma aqbalayno waana khalad arrintaasu walaalka baarlamaanka ka tirsan ee nagula jira horta ninkii ugu caqliga badnaay oo ugu cilmiga badnaay oon aaminsanahay Soomaaliya ayuu madaxweyne ka noqon karaa ayaa horta qadka noo soo geliyeen walaal dalxa waxaan ku leeyahay xaquuqda adigoo dibadda uga doodan koogay dad xabsiyada Soomaaliya qaarajka ku jira adigoo raadiya ayaan ogaa maanta waa inaadan ku milmin kuwa dhiiga dadka Soomaaliyeed iibsanaya ee mansabka ku raadsanaya inaadan ku milmin anshaxa barnaamijka aan isla dhowrno boqor aan isla dhowrno anshaxa barnaamijka muwaadin Soomaaliyeed in la dhiibo oo guddi loo saaro anigu ma qabo aqligaasuna waa aqli loogu raad gadayo waxaan leeyahay xildhibaan dalxa waata waxaan martida ka codsanayn hadalka ay asluubeeyaan xildhibaan dalxa haye horta waa dad Soomaaliyeed xagga qiirada waa laga wada siman yahay runtii waana midaan dhaqan u leenahay laakiin baa maanta wax weliba ku dabran nin hadda ka hor ugaas ahaa sida hadda boqorada hadda iyo ugaaska iyo nabadoonka sadka igula jiro kale ayaa waxaa la yiri reerihiisa iyo reero kale ayaa dagaalamay markaasaa boqorkiioo asaga horta maanta dagaalka uga jiro ama ugaaskii ama nabadoonkii ayaa la qabsaday boqorkii la qabsaday ugaaskii la qabsaday nabadoonkii la qabsaday markaasaa inta la kaxaystay ayaa ayagoo asiir ah ama la haystayaal ayaa haddana waxay qalbiga ku hayaan dadkoodii ayay mar walba ninkii ayaga meesha ama war un meesha halka dadkeeni maxay ku dambeeyaan dadkeeni baa idinka idin eedeynayaan jabkeeni iyo halaageeni kuwaasaa ku shaqo lahaa ugaaskaa ku shaqo lahaa nabadoonkaa ku shaqo lahaa boqorkaa ku shaqo lahaa wax allaala fariintii ayaga ay u timaado dadkeeni maxay leeyihiin sidaasay idin leeyihiin marka nin ka mid ah baa gabiye markaas wuxuu yidhi alaa laa taluumaanii kafalowma maabiya alla idinku horena eedaynay jecnaan lahayda oo ma arkay maxaa yeelay eedayn waxaaba idinkaga filan wax annaga aan ku sugannahay xaaladeenna annagoo ugaasyadiinii ah boqoradiinii ah nabadoonadiinii ah ayaaba lanala haystaaba oo dagaalkiina lagu soo qabsaday oo asiir ah maxaad nagu eedaynaysaan annagaaba nala haystaay ayaga odayaashii ay ku jawaabeen dhaqanka horta wadciga Soomaaliya maanta yaallo waa sidaa ma garatay nin asagaba madaxweynihiisa iyo ajnabi ilaalinaayo baarlamaankiisa ajnabi ilaalinaayo
prime ministerkiisii iyo xukuumaddiisii oo kulli ay wasiiraannahay dhahay ilaalinaayo gobolladiisii loo ilaalinaayo degmooyinkiisii loo ilaalinaayo airbooradiisii loo ilaalinaayo dekadihiisii loo ilaalinaayo hadduu maanta yidhaahdo qori baan soo iibsanaa laleeyahay qorigaaga sheeg meesha aad ka soo gaday iyo nooca uu yahay iyo meesha adiga aad geynaysid ee aanan ciidankiisii baddiisii oo la dhacayo awood ulahayn kalluunkiisii oo la qaadanayo awood ulahayn sun lagu shubayo aanan ka celi karin hawoodiisii la iska dulmaanayo aanan shaqo kulahayn dhulkiisii meeshii la rabo laga gelayo laga soo baxayo maxaaba yacni qofkan isaga u yahay waa tan hadaaya lahaa ahaansheen horta maxaan nahay annaga dad oo iyaga ay ku doodi kara ahaanshihii inaan annaga nahay dad jira oo aanan lagu soo xadgudbi karin xuquuqdooda guud ahaan ee kulliyaadkooda miyaan nahay markaan kulliyaadkeena aan difaacno juzaiyaadkeena ama waxaan difaaci karnaa furuucdeena markaasaan qof difaaci karnaa gabar la kufsaday difaaci karnaa wiil madaxa laga jaray difaaci karnaa isla markaasna maaragtay hantina laga dhacay aan difaaci karnaa hadda kulliyaadkeennii oo dhan iyo ahaansheenii oo dhan baan gacan noogu jirin marka maxay noo maaragtay maanta oo kala garowsho ay noo tahay ma taagannahay waagu maxamed siyaad bare u dhahayay wallaahi haddaanan dadka degan waa gaalo ee waxa lagu sameey laga soo jawaabin sarta dalabtale ayaan berito ciidankayga ka qadaynaya ma taagannahay maalintaan ku heesaynay harar iyo hawaas habeen waan hayaa maanta ma taagannahay iya magarka dadka reer wajeerow NFD marka loo heesaayo isticmaalka diida ma qaadi karnaa yacni maanta maxaan anaga ka goynaa codkeena calaancalkeena qayladeena go'aamadeenna kulli meel iskugu wada keen taxliil intaad soo qaadatid shaq maxay ka soo bixi karaan derbiga ku yaallo ayaan inta aan ka baxnay annaga oo wasiirka maartay difaaca oo diinina hogaaminaya ayaan ka degnay beled xaawo dadkii oo qaylinaya baldalxow daya waxay dhiseen daya ayagoo dadkiina ay diiraysan waan tagnay godkii la qoday baan aragnay meeshii baan tagnay waa soo fiirinay buugii baan kornay wax weliba baa nala yidhi waxay damacsan tahay dawladda kenya iyo derbigaasi ayaan soo ogaanay waa nimid dawladdii baan u keenay waa sheegnay meeshiina naga dayn lahaa haddeer leeb lasii dhisay oo wax ka hadli karo iyo sheeko kale ma jirto waxaan maqlaynaa reer beled xaawo waa loo awood sheegtay derbigii waa la wadaa maxaa adiga marka adiga kuu soo baxay haddaan xanaan oo aan isqarxiyo oo aan booteeyo oo aan wax weliba soo saaro maxay siradul ficli ka imaanaysaa nin kafiil laga yahay muxuu asaga laftirkiisa kafiil ka noqdaa annaga marka aniga ma rabo inaan gunta hoose waxa hadda aanan weli baarlamaankayga soo saarin inaan ka hor dhaco ma rabo laakiin hor dadka soomaaliyeed aan isqiimaynay yaana nagu sameeyey waay yaana nagu baday waay maanta wax aan nahay iyo wax aan ka calaacalayna iyo waxaan isku haysano ma dad kale ma inaga markaan kadib annaga laftirkeena dib aan iskugu noqono war gunnimada aan ku jirno saan ooga bixin lahayn aan ka nimaado waxyaabaha ee annaga intaan inaga oo dhan ba ahaansheeni jiran macaada lahay lahaansheeni doctor balhe barnaamijkaas inaan ka jawaabaan rabay mar hore anigu barnaamijkaas min jaanib baan kaaga khilaafsanahay jaanibna waan kaala ogolahay jaanibkaan kaala ogolahay waxa weeye dhibkan annaga isu geysanay adiga weliba nin aqoon-yahan aha tahay aad baan ugu faraxsanahay inaad fahmi karto waxa aan ka hadlahayo waxa aan sheegi doonana si dhow inaad u garan doonto horta dib markuu dhaco mushkula way dhacdaa caalamkay ka dhacday horeyna way usoo dhici jirtay haddana way nahaysaa dibna way u dhici doontaa ilahina ha naga saaro waxaa ka saara dadkaas sideeduba ma jiro shacab intay iska ordaan wax iska fujiyaa way yar yihiin qiyaaday u baahan yihiin shacabka marka la tafsiirinayo waxaa la yidhaahdaa ummad wada fiicani ma jirto haddii jirta nebiyaba lama soo direen ummaddu waxay u baahan tahay hoggaan annaga horta inaan isfahanaan rabaa inta aad sheegtay way soo dhaceen maxay u soo dhaceen adiga waxaad la socotay cabdullaahi yuusuf anigana waan kaa soo horjeedo shariif baan la socday nin kastaba tiisu difaacanayay barnaamijka uu markaa arkahayaa wuxuu leedahaa macno soomaalidu waxay u baahan tahay nin u tusaa maanta way isla wada joogtaa dhaqaalay soomaalidu haysataa cilmi bay haysataa karti bay haysataa waa dad firfircoon soomaalidu way bislaatay way gubatay ururadii bay wax ku soo weyday aniga urur baan ka mid ahaa waxaan soo taabtay ururkii inuusan macno lahayn jilba murux iyo oon iyo rafaad inaan waxba lagu keenaynin baan soo ogaaday aniga kuwii la midka ahaaba adigu waxaad soo ogaatay sida oo kale etoobiyaan lasoo ciidansado
jamhad kale oo la keensado dawlado kastoo la daba maro qof kuu danaynaya inuusan jirin waad soo ogaatay maanta waxaad ku qanacsan tahay sida aan u qanacsanahay in la helo Soomaali midaysan aan la soconin Ethiopian la socon Kenya la soconin shabaab la soconin muxuu ahaa qolo kale la soconin ummad Soomaaliyeed oo qarannimadeedii iyo danteedii iyo midnimadeedii iyo sharafteedii iyo wadajirkeedii ka hadlaysa oo rabta inay soo celiso inta markayna wada qabatay Soomaalidu waxay raadisay hoggaan bay raadisay dibka ka saara dadku markay sidaa u karaan oo kale ay bisil yihiin waxay u baahan yihiin hoggaan facaala oo qad dawladeed leh oo qad qarannimo leh qad shakhsiyadeed leh oo jeexi kara muxuu ahaa dadka intuu si ku xirto balka la jeexi karaa loo baahan yahay oo hal markii inka ummaddu markaasoo keliya waxay u baahan tahay in loo khudmeeyo oo dhaqaajiyay u baahan tahay ninkii noocaas ah ummadii oo karsan ninkii aanu daba fariisanay oo ogsoon tahay dadka lacagaha qaatay inay asaga u codeeyeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadka dhan ma ahayn ninka aan xoolaha dibka hayay oo u badan 3 arrimood buu ahaa ninka sana waa ogsoon yahay kow dabadhalifnimo iyo faragelin shisheeye oo sidaad u sheegayso wasiirka gaashaandhigga la baarahayo xildhibaanka la baarahayo qofba meel wax ka keeni karin naloo taliyo oo nala haysto waxba aan naloo ogolayn in arrinta ayadaana laga bixiyo oo qofkii keen leeyahay la keeni karo in arrintaana laga saaro kow bay labo in laga bixiyo musuqmaasuqa lacagtanadii baa la cunaya hal shakhsi baa ummaddu waxay ku noolaan lahayd cunayay in loo ururiyo oo meelna loo dhigo oo annagan aan isticmaalno oo noheer ku gaarno canshuurtanada aanu ku korsanno qaran ku noqono nin noo sameeyo inaanu helno saddex qabyaalad baa na dilootay lafaha naga gashay qarankanagina halkaa dhigtay qarannimadanadiina noo diidan inaan dhisane nin aan qabiili ahayn oo naga saara waxaan oo barnaamijkaan horkaca buu ahaa waxaa la isku raacay dadka intiisa badan dibad iyo gudaba shacabka Soomaaliyeed wuu isla wada socdaa wuu la isog yahay marka la xadireynayo farmaajo la lahaa waxay ma sheegay sidaan hore u sheegay nuqdadaha aan soo sheegay ama calaamadaha aan soo sheegay ummadda soo kartay ayaa waxaa la lahaa asaga dawow ah maanta ay si ayada waa burburtay oo lama hayo oo maanta farmaajo nin dhahayo ordahayo ma jiro markii la dhiibay muwaadin Soomaaliyeed oo laga sugayn oo midii ugu horeeyo shisheeyaha in laga hortagaay oo waliba cadawga ummadda Soomaaliyeed ahay nin Soomaaliya oo muslina oo aan dib geysan oo 7 ka qayb galay oo gurigiisii jooga oo magaaladii Muqdisho caasimada ahayd jooga xabashi loo dhiibay waa arrin aad mucjiso u aweeyay waa xildhibaan dalxaaye ugaas waa kugu soo noqonayaa dhegaystayaal badanaa qadka ku jira oo iyaguna aan fursad siinayna xildhibaan dalxaaye jimcaale horta anaga nin Soomaali qiiradiisa runtii way farax gelinaysaa waxaa laga yaabaa aniga waxyaabaha aan dawladayda marka laga reebo dhammaan la isku wada yiraahdo shacabka iyo hay'adaha dastuuriga oo xukuumadda aniga hal eray oo aan u naqdiyay oo ama muwaadin Soomaaliyeed ama xildhibaan ah oo aan elef waa argagixiso erayga aniga waa diiday in sida xukuumaddu ay tiraahdo fikirkayga aniga iyo intii ila qabtaba waayo oo elef maanta anaga liis gobernador ayaa mar lagu asteeyay oo Soomaali taariikhdeeda ugu jiro daldanna waa loo burburiyay walaalaha maanta dawladda maanta goboleedka Soomaalida Ethiopia yani maanta dareenka ay ka qabaan annaga shalay dawladnimadii annaga dartood ay u burburtay iyagu waxay maanta qalbi dhagax ay ka qabaan way ka bedelan tahay maanta waxa ay cabirayaan ninkaas shalay dambi ooga dhigayaan waxyaabaha ay soo bandhigayaan meel kale ha gaarin baarlamaanka dhexdiisa laga shanqarinayay wax sida aan waxba kaga duwanayn oo rag oo xildhibaana oo si cad ay microphone-ka u istaageen ay yiraahdeen ninkaas sida loo dhigayo arrintiisa sida ma meesha wali fiiha maarib ukraaba ku jirta waxyaabo kale annaga nin istaagay ninka kale ayaa u istaagayay ma garatay oo dul istaagay marka arrimuhu sida ay yihiin ma aragtay weerar celis ay noqoto qaran Soomaaliyeed na gooni markaan u dhigno qofka muwaadinka nin aragti ka bixinayo inuu aanin halgame dagaalyahan oo gobonimo doon ninna inuu dambi ka soo galay Soomaali iyadana dhinac kale iyadana ka soo qayrinayso ay leedahay sida buu nagu sameeyay horta ninkii la yiraahdo adiga qaaliga adaa garta ma artay qaad waa inuu eega kana dhageystaa kana uu dhageystaa aanan isla soo boodin markiiba halkaas aniga madaxweyne Farmaajo iyo in la eedayo ma qabo iyo ma artay iyo ra'iisul wasaare Khayre waxa yeelay waxa ayaga shacabkooda marka laga yimaado
go-aan ay qaataan ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan. aniga baarlamaanka haddii codka laiga badiyo ma inaan soo istaago maha baarlamaanka waa saas, jawaari waa kaas, cabdiweli waa saas, mahad waa sidaa, maya. baarlamaanka codka majority uu ku gaaray ayaan ku qalanay, uu ku jiro hooyadii ku qalan. nidaamkii aan dastuuriga iyo dawladnimo anaga aan degsanaya sidaa u shaqaynayo. laakiin aniga midda aan rabay inaan aad iyo aad dadka soomaaliyeed aan u dareensiyo aan ku celcelinaya waxay tahay markaan lahaa ahaanshaheennii war aniga nin ilaalinayo wax ma ka ilaalin karaa horta. waayo ninkii ilaalinayay ayaa wuxuu sameeyeyba wax aniga aan jecleen, oo haddii asaga kii aniga ay ilaalinayay aan midaan aniga aan ka ilaalin karin oo asaga kaba soo qaadin uu ka xadgudbo, maxaan samayn karaa? inaan ooyaa, ma inaan caytamaa, ma inaan uurka ka ooyaa? marka aniga min billahi walyawm alaakhir maxaa le ahayd haddii oo yuqayiru biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic fa biqalbihi. arrintu meeshay taagan tahay soomaaliya iyadoo dawlad ah oo maanta iyada ay jirto oo awood leh oo waxay rabto tallaabadeeda ay qaadan karto, iyo iyadoo maanta soomaaliya sidan ay tahay aan soo qaaday oo aan cabiray, isku si miyaa laga qaadan karaa? isku si miyaa loo hadli karaa? ma isku sibaa loo qaartay fikirka uu noqon karaa? xaaladda waa inay mar waliba adiga aad eegtaa. nin soomaaliyeed baa nin soomaali hortiisa gabadhiisa ku watay oo awoodi waayey wixii la doona lagu soo sameeyey, ama iyadoo dhanba maartay nafta laga jaray. adigoo gabar soomaaliyeed oo oynaysa aboowe walaalle walaalkay ay leedahay ayaa nin soomaali aad ka qaban weyday oo dhihi weyday waryaa kuma dhacdid gabadha ka joogta bas ilaaha joogo nin yiri waa iska jira. waxa annaga aan dhexdeena isku samaynayno ee daily ah ee ilaa yoomana haadaana wax ka bedelid aanan jirin, aanan isu garaabayn ayaa ka weyn waxa hadda khaladka ee soomaalinimada aan iskaga maartay iskaga hor imaanayno. horta aan ka nimaado ani waaba sheegayba waxaan inagoo dhan baaba dhiiban, ma garatay? hal qof aad sheegaysaa macal madaxweynehina waa dhiibannahay. waxaa marka annaga sidaa marka adiga aad ascab shay lilinsaan an yacrifa qiimata nafsihi, ama ilaahay ha iska cafiya leerin aan qadarka asaga uu naftiisa iyo sha'nigiisa aanan garanayn, ma garatay? maxaa yeelay annaga wax aan nahay ayaa annaga aan ka bartiiraynayna. laakiin ninkaa muxuu ahaa iyo intaanan ku murminbo haddii nala yidhahdo asaga garoonka aan maanta naloo soo dhigo muwaadin soomaaliyeed waa kaa, wallaahi ummadda soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa inta soo guuxaysa ka badan. hadda nin baa laga qaylinaya kowdhay weli aan etoobiyaan ahayn dawlado kale ah oo ayaga kusoo maqan dad badan oo soomaaliyeed oo qiimo leh ayaad arki doontaan. taa wixii laga yeeli lahaa looga hortegi lahaa kan waaba tegay. haddii maanta wiifta ay timaado haday ku dhacdo oo dhintaba waa laga safri lahaa. laakiin waxa soo socda u baahan sharcigii iyo nidaamkii lagu xijaabi lahaa almiino biribo adduunka taariikhda aan ku darsano annagoo sharcigaasi noo yaal ayaa kaasi dhacay. ummadaana haddana sharcigii xataa isku difaaci lahayd ee caalamka u garaabi lahayd oo ay u gudbisan lahayd tabar ma hayno maanta. annaga badeena maanta nalaguma qabsadeen haddii tabar la ogyahay. xansiyaad bari dawladis markay joogto maxaa loo soo hunguriyen waay badda, maxaa hadda loo soo hunguriyeystay? maxaa hadda annaga meel walba maaragtay annaga in nalooga soo furo maaragtay keenay maaragtay annaga u ekaanay sooma. marka waxa waaye yaana eedin yaynaan maaragtay meeshaan waxyaabo badan oo maaragtay boqolaal qalbi dhagax ah ayaa maaragtay waxay maanta Soomaaliya lagu galay hadda ugu dambaysa mid maxaa la siday 32 Soomaali oo u dhalatay Somaliland ayaa Oromo oo ayada laftirkeeda taxta saytarad Ethiopia ayaa laysay. waxyaabaha website-ka ku jiran akhriya fiiriya dawladda qaarkood in laga been abuurayo run inay tahay aanan garanayn ayaa Soomaali geeska Afrika oo dhan Ethiopia loo dhiibo ayaa YouTube aad ka helaysaa. caaw haddii kulligiina wada akhrinaysaane maalin walba dad baa ugu jira maalaha yacni gabar qaawan iyo maartay iyo wax daran maartay Facebookyada soo dhiga ama ka akhriye akhrista waxyaabaha caalamka lagu fakarayo Soomaaliya laga sameeyo dawladda waliba aan gacal moodayna qaarkood haddaan dusha laga saarayna ay dhab ay tahay ay ku kacayaan. waa tahay namadoon qilaawe ma ku jirtaa qadka jamaale halaaw namadoon qilaawe? waa tahay dhegeystayaasha ayaan iyaguna siin doonaa. qabyaalada diidayo dejiya Soomaali weyn kanoogu dejiya Soomaali weyn kanoogu daacado qabyaalada diidayo dejiya
Somali weyn kanogu dejiya Somali weyn kanogu tahay weli saaxiibayaal barnaamijka maxaa korna wixii la sheegay ayaad degeysanaysaan madoobe oo jaamac cali ayaa qadka ku jira madoobe waa ku jirtaa halow aqoon-yahan madoobe halow aqoon-yahan madoobe waa tahay dhegeystayaasha ayaan siinayaa halow haye walaal magacaada ايوه عبد الحميد بالي هذا عبد الحميد هي برنامجك ولا سعتها هروق الرأي هذا يبيستقل بداع كور وحن كله ياي شعبك وعيدنا يعني نك دكتا سنت جيزة سدع دكتا هي حد ركعين هي بعد ولا جيدا دكتا سدع على جيزة نك سنت جيزة نك سدع على كجرة إلى هذا كدقي بس شعبك دونا يعني حد ركعين waata waxaan jecelnahay inaad faahfaahiso ra'yigaada si dadkoo dhan ay kuu fahmaan waa ninka xildhibaanka ee baarlamaanka ka istaagay ee yiri qalbi dhagax haddii la dhiibay calanka shanta geesba saddex baa la jaray ninka yiri ninkaas baa dadka jecel yihiin ninkaas raacana shacabka waa tahay qofka xiga halow dhegeystaha kale halow waa ku maqlaa walaal magacaada وعبد الرحمن قال له جوج هيا عبد الرحمن ولا سعتها برامجك سيتي أنا ولا سعدها سيبنا يكسر وحن ميشان وحرته وعدينا عرتني كان بالحق هذا ما تني بقول كيف بقول وأنا كورة عشان هاي بررت أورجي كوين هراء الله الشيء وركا قال بدأ ميشان لوجا عرارة يلا قد طبعا عرارة ما نصير ملايين ملايين تمام تبصيلها يا ميشان دبعتي كتاعتها ما نصير يا وطني يعني والله مركي لي هذا لما الذي هو حق لقيه وحقلي أنا وطني أنا صار ورسل مكي الدين الموسى فلاي مكي الموسى فلاي قصو كاش مكشل الموسى فلاي وأقبله ما أنت مركي عمش أنت مدن حالة وطني هاي هذا وطني شهادتك كسو فلان قاركود والله هذا وحال هذا يذكي مطاكين طاي يذكي كجرين الله هذا وملايين في حين 50 يسوي هذا لقيته دينا يقول كركرت سعدا محال قد بكع هالكان ورنين كان ما بحي حتى تنصص المركز كثير من الثيري waata aad baad u mahadsan tahay haddii aan weydiiyo ugaas maxamed weli waana maqashaa waa tahay arrinta aadka u xasaasiga ee la hadalhayo waxay tahay mas-uuliyiintii horkacayay in dawladda mooshin looga keeno arrintan qaarkood waxaa lagu helay in heshiisyo horay arrintan oo kale ku saabsan ay la galeen Ethiopia marka soo ma muuqato in dana siyaasadeed arrintan laga leeyahay niyo horta dadku Soomaalida waa dad muxuu ahaa markaad fiiriso mararka qaar Soomaali ka dhaxadaya warninkaani asaga danta uu leeyahay asagay u taalaa iyo waxa iyo qorshaha uu wato laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxa mudan war qof haddii la dulmiyo in laga hadlo la yiraahdo aan la dulminin sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo aqliga saliimka iyo qawaaniinta bini'aadamka way ku raacsan tahay dadka waxaan leeyahay waa dad shakhsiyadii liita weeye dadka ka hadlaya arrinta oo bulshinaya war ma salaad hadduu sharci asagu wax soo saxiixay
waa nin muwaadin oo Soomaaliya oo wax khalad oo saxiix lagu dabagalo maxkamad hal la saaro hal la qabsado laakiin inuu yiraahdo ninkani waa muwaadin oo in la dhoofiyo sharcigu noo ogolo oo waa khalad in la yiraahdo in lagu qabsado la yiraahdo maxaad u leedahay dan kale aad ka leedahay hatta hadduu ka leeyahay waa arrin khalad ah waxa weeye waa kalimatul xaq yuraadu biha al-baadil weeye waa kelima xaq ah oo si baadil loo wada weeyo si khaldan loola jeedo aniga waxaan leeyahay war ninkaas la dhoofiyey dadkaan aad sheegaysaan awal hore lagama hadlayno war qofka haddii uu dhinto si ilaahay u dhinto iyo haddii uu muxuu ahaa meel ku gaajaysan yahay midna ilaahay nin kama celin karo qofkaan gaajaysan irsaaqadiisa allah iyo ummaduna wixii ay haysto oo tari karto way tartaa war waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye laba arrimood baa meesha taal dadku inay fahmaan loo baahan yahay war dawladdii aanu sugaynay oon islahayn waa midaad sugayseen oo aan noqonin midii aan sugaynay oo shacabkii uu niyad jabay oo madaxtooyadii waa tahay ugaas aan mawduuca isla dhowrno mawduuca ka bixin qofka xigaa qadka ku jira halow waa ku maqlaa walaal magacaada السلام عليكم. وعليكم السلام هروق البرنامج كده لصعد واكم مقلا هروق الرأي قاده ها فرحة وحي ويدينيسا wuxuu yiri أنا وديبين هو يري marka cid mutaqana u diibanaya waay mawduuca sar dhowrno waxa ku saabsan mawduuca kala baxraayiga xildhibaanka waxaan siinayaa dhageyste kale oo fariin noo soo diray waxa uu leeyahay assalaamu calaykum baad shabeelle magacaygu axmed khayr ducaysane anigu waxay la tahay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax waa shakhsi dembi galay bulshada waxaan dhihi lahaa buubuuniska badan ha laga daayo waa dood iyo dagaal ninkii raba Ethiopia hala doodo waa sida uu qofkaas soo qoray assalaamu calaykum shabeelle ayuu leeyahay martida barnaamijka waan salaamayaa magacaygu waa cabdiraxmaan axmed maxamed oo jooga degmada kaaraan waxaan su'aal weydiinayaa boqorka marka masjidka ku yaala degmada Hiilwaa culimada ay ku gooracayeen Etoobiyaanka iyagoo jooga caasimadda maxaad uga hadli weysay markaas boqor Soomaaliyeed ma ahayn miya mise waxaad taageersan tahay in shakhsi dagaal oogay la xirogeliyo waa ra'yigiisa waa qof kale ayaan siinayaa halow السلام عليكم. وعليكم السلام magacaada walaal baan shabeelay dhigeysaasha dhamaantiin door wanaagsan jimco wanaagsan ayaan leeyahay haye hore u gal barnaamijka daa la socoto barnaamijka ugu gudgala barnaamijka qodobka dooda wuxuu ku saabsan yahay baarlamaanka oo ka doodeen in qalbi dhagax guddi loo saaro loo xil saaro annaga taa shacabkana aad baan ugu xunnahay nin muwaadin Soomaaliyeed oo 3 sano wadan ku noolay guddiga in laga warsugo Soomaha ilaan wax go'aana ama xalka arintaas sooma oogin ama sooma saarin inta guddiga arintan uu ka soo xaajoonayo uu go'aan ka qaadanayso in laga dhursugo ma ha in laga warsugo horta nimankan wasiirada sheeganayo waxay yihiin kulligood bood bari dhibaatada wadanka wax ku hayo ayaga wax been dadku malacaabaan oo aan fadhiin al-shabaabaatiin marka waxaan leenahay dalka in laga qabto waxa mudan nimankan wasiirada dhibaatadan ayaga dalka ku hayaan waa tahay baahda shabeelle ayuu leeyahay waa Xuseen dalxa ii weydiiyay haddii meel kasta uu ajnabi faraha kula jiro maxaa dawlad ka tihiin soo lama dhihi karo ajnabi ayaa idin xukuma xildhibaan dalxa haye aad buu maqlaay su-aasha muxuu yidhi waxa uu leeyahay haddii meel kasta ajnabi ay faraha kula jiraan maxaa dawlad ka tihiin soo laydimna xukuma ayuu leeyahay dhegeystahaas uu mahadsan yahay horta yeeshaan u arkin dadka dhalinyarada ee hadda soo maartay hana qaaday dowladnimadu inay tahay keliya in madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye maartay jawaari iyo ra'iisul wasaare khayre ama madaxtooyada iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorka dawladdu waa asaaskeeda waa shacabka Soomaaliyeed ayaa dhammaan waxay ayaga ay ku qalan yihiin ayaa anagu horta aan ku qalannahay dawladnimaduna waa waxa ay ka kooban tahay shakhsiyaad ma aha markaan hadda ka hadlaayo anigii kulliyaad iyo furuuc ama juz'iyaad u kala qaadayay hadda barnaamijka la socotay walaal annaga in la xukumayo wayba ku cadahayba
annagaana iska dhignay oo inala xukumo waayo maanta dawladda Soomaaliyeed aanan xukunkeeda gaarsiisanayn badi maanta dad Soomaaliyeed ama dhalinyaro Soomaaliyeed martida cid raadiyaha uu shidan yahay iska gaabiso fadlan waan ka codsanaynaa ayaa maanta cadow noo ah iyagana annaga aan cadow isu nahay annaga waxaa gacal noo ah oo dawladnimada nala difaacaya dad iyaga cadow isu ah annaga oo dhan xayndaabka aan ku wada sugannahay ayaa sheekadu u baahan in aan isla wada garanno sheekada maanta waxay ku soo ururaysaa aragtidiina keliya haddii maanta inta hadda annagana laga reebo khadka ku jirno oo idinka aad soo tabinaysaan sarkaalkii qalbi dhagaxa ama nin dambiilu ahaa mise nin aan dambi lahayn idinka xukuma haddii la idin yidhaahdo intii hadda hadashay nin walba siduu yidhi waa ujeedaan dadka baarlamaanka ku jirana waxay ka soo qaadanayaan shidaalka sida shacabkooda uu fakarayo laakiin waxaadan idinka aanan ogeyn inaa xisaabta aan kusoo dara laga yaabo qaarkiina 20 jir ama 18 jir ama 22 jir inaa u badantihiin dawladdii Soomaaliyeed ee magaca iyo xoogga ee dabaabaadka iyo diyaaradaha iyada keenaysa daqiiqad haddii iyada wax unay dirsato ay aragto waxay ku burburtay Soomaali galbeed oo isugu wada jiraan nooc waliba si ay u gaarto madax banaani ayaa si jamla iyagoo ah ayay ku soo jabtay ayaa wixii laga dhaxlay waxa maanta heerkan gaarsiiyay ay tahay haddii mar kale maanta haddana aan nin shakhsi ah wadana annaga haddana aan intaan boodno afarta xaba aan haysano taliska baydhabo keliya gadaashiisa fadhiya amxaar ama Itoobiya ama Xabashi waxaan ku sheeg aan isku qaadno maxaan kala soo noqon karnaa maxamaraan ugu darnaa haddana talaas maxaa adiga diiban lahay oo intaas waa idinku yaraatay intaana ku darsana ilaa intii hore aan raadinaynayba maanta waxay joogaan horumar iyo dawladnimo anaga aanan haysanin ayna ku caafimaad qabaan dawladda Itoobiya heshiis kula yihiin caalamkoodii ayagoo wada dhaantadoodii ku dheelaayo oo aanan shida iyo balaayo qabin annagiina shalay meeshii aan jamladaasi aan wax ku raadinaynay maanta wax u egna ma haysano inagaas cunayno marka waxa waaye aragtidaada badi ha ka duulin duleel yar ee adiga ooga jeedid qalbi dhagax keliya oo qalbi dhagax dhigin nin ujeeda la inina ujeeda lahayn ba aniga geli maayo oo saaxiibadeyda qaarna aragtidooda baarlamaanka ku soo kala harnay waxaan isdii karnay iyo helistii karabo laakiin marka shacbiga aan la hadlayo ee mustawaha kala duwan afkaarta kala duwan da'da kala duwan waayo aragnimada kala duwan aqoonta kala duwan wadaniyada ku kala duwan xamaasada ku kala duwan ee anaga aan hortaaganahay waxaan jecelahay in dadka Soomaaliyeed ay u bataan haddii ma aragtay ay noqoto arintu laba daran mid dooro adigoo go'aankaad qaadan lahayd muxuu noqon karaa marka ay soo istaagto laftirkeeda adigoo aan kansaas way adigoo kan aan way adigoo aan dhihin maxaa samayn kari lahayd baa meesha taal baarlamaanka ninkii codkeyga la socodin kale laba nin baa waxay ku murmeen ayagoo hal qoys isla ah mukulaal baa dheri madax la gashay baan idhi oo wuxuu yidhi maxaan samaynaynaa dherigaan rabnaa inaan badbaadino ayuu soo jeediyey seen ku badbaadinaynaa mukulaashaan qoorta ka goynaynaa buu yidhi waayo uu yidhi maxaa dheri waxbaan ku karsanaynaa waxbaan rabnaa inaan ku cunno kii kalena wuxuu yidhi maya dherigaa la jebinayaa say mukulaasha u badbaado waayo mukulaasha wuxuu yidhi bahalada inaga celinaysaa doliga inaga celinaysaa masaskay cunaysaa waxaasi haddii mukulaasha aan dilinayaa naga celinayo wax lasoo iibsan karo waxaasi dadka mu'tiyaan kritikada naga noqonin wax la mid ah wax noocaas oo kale annaga baarlamaan sharci ma hayna ma haysid ma difaac waxaan ku sheegay hadda kuwa imaan doona ninkaan sigiyo ayaa annaga sharcigeedii lagu difaaci karo wixii annaga almiino tabartayada ay gaarsiisan tahay wadadka adacful iimaan inaan iraado qodobkaasi sharci maaha anaa ku dhahaya hadda barke inaan iraado oo aan LF la yiraahdo arka kixiso wax wanaagsan iyo wax nidaamsan iyo wax ku dhisnaa iyo wax sharci iyo wax peaceless sababta waxaan ka duulayaa 77kii anaga maxaa Soomaali loo xilligay oo dagaal loo gelinay hadii on LF ay tahay ma artay in arka kixiso xaqaysa adduunyada oo qoran tahay ma hayno anaga Mareykanka ma artay soo saarin UN ma soo saarin Security Council ma soo saarin African Union ma soo saarin IGAD ma soo saarin Arab League ma soo saarin meel ay ku qoran tahay oo anaga la leeyahay on LF waa arka kixiso shalay danaad ka hor anaga ma maqlin maanta waxaan ku adkaysanayaa sababta meel raacayaan haystaa oo adduunyada ha noqoto oo international ama ha noqoto mid regional ama ha noqoto oo aan maxalli ah walaa dawladii hore lagama maqal oo walaa baarlamaan hore iyo walaa mid kale taa aniga waxa waaye ana waxaan hortaagan khalad waa dhacay see loo saxayaa ma waxaa loo saxayaa marka waxaasoo dhan waxaan doonaynaa inaan anaga aan ku abaano laakiin anaga fadhi kudirad iyo codkarnimo iyo maartay iyo caatifad maaha waxaan doonayna waxa waaye Soomaali oo dhan
maxaa badbaado noqon kara inaan ka fakerno hadda iyo wixii ka dambeeya. su-aalaan ku weydiiye xildhibaane. welcome. xildhibaane waxaa ku soo celcelisay in la haysto tooda badan wada joognay iyo laba aan ka maqnaa waa meesheede 18 sano haddaanan khaldaynin ama 17 sano waxaad ku jirtaa dawladda Soomaaliya ku jirtaa. 17 sano ma gaarsiisana 8 sano ku jiraa iyo 10 sano meelaha. ma markaasi baad idin adiga aniga bagaasi waaya kuma jiraan markaasi waa inaan arkan wada joognaan moodahay waan qalday haddii xildhibaanadiina raggii ka horeeyo arkana way ku jiraan meesha waxaa la rabaa haddii aydan waxba qaban karin oo dad idin leeyihiin oo laydin kor taagan yahay oo dad idin haystaan ma mushaarka qaadanaysaan iyo magaca xildhibaanka macna idin leh ma isxasishaan oo maxaa jaga kale u raadsanaysaan dalkii hadduu noocaan yahay ilaan dalku waa islaan oo kale islaan ninku hadduusan asagu maamulan karin faruu kala baxaaye haddaydan waxba qaban karin hal islaana waxaa la yidhi muxuu ahaa ama si fiican u haysta ama iska foofiya ma waxaad macno bideen in mushaar aad qaadato oo magaca meesha aad ku joogto ma iscasishaan oo dadka u caddaysaan oo tirahdaan meesha waxba kama jiraan magaca ummadda iyo taariikhduna laga hadlaa jawaab fiican waaye suldaan wadaa arrinta ayar aan kaaga jawaabo haddii caawa iyo maanta aan farmaajo annaga aan nidhaahdo iska deg suldaankaan kugu bedelaynaa awooddeeda ma leedahay inaad adiga aad nooga saarto ciidamada shisheeye dalka ay joogaan ee aad tirahdid dhalinyarada naga soo horjeedo oo ayagana aad hubka dhiga aad tirahdid waddanka ilaa iyo aad isku furtid zaylac ilaa iyo maatiraad kaambooni ilaa iyo maatay dhulkii berigii dawladda dhexe annaga aan ka talin jirnay awooddeeda ma noo haysaa caawan ku dooranaynaay haddii maaragtay aan bedelaynona haddii kale hata axmed madow haddaan kugu bedelno jamaama ma noo xorayn kartaa
waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay ayaad la socotaan dhegeystahan waxa uu leeyahay assalaamu calaykum shabeelle magacaygu waa cabdi onkod oo jooga degmada boondheere arrinta qalbi dhagax waa inaan lagu mashquulin ee aan ka hadalno shacabka qaraxyada ku dhimanaya aniga waxay la tahay dawlad xun waxaa ay ka wanaagsan tahay dawlad la'aan fu'aad faarax jamcaale waxa uu leeyahay xildhibaan dalxa waxaan weydiinayaa haddii etoobiya ay idinka garab dagaalanto oo ay walaalihiina yihiin maxaa dhiba oo ku jira inaad dadkiina u dhiibtaan waa ra'yigiisa dhegeysto kale nuur sheekh la yidhaahdo oo jooga wada jir hadalka dalxa waxaa ku jiro fariimo u baahan in la fahmo taasoo ah qof adig ku ilaalinaya ma wax ka ilaalin kartaa taas waa runtan kale guddiga ha laga warsugo shacabka ha isdejiyo maalin kasta meeqa ayaa la dilayaa marka alle ayaan xalka baryaynaa qalbi dhagax haddii la dulmiyey ilaahay ha badbaadiyo ayuu leeyahay qofka xiga halow halow halo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaada walaal jimcaale magacaygu waa cabdiraxiin nuur maxamuud oo ducufayku magac dheer oo wadajirkaa la soo hadla alaarsa haya cabdiraxiin waa la socotaa barnaamijka aad iyo aad runtii waan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan quruxda badan haddii goor aan noo daadiyeyso horta runtii ra'yigayga markaan ka hadlo arrinta qalbi dhagax iyo go-aankii baarlamaanka uu ka qaatay in guddi loo xil saaro horta runtii waa arrin muhiima sideedana horta haddaan nahay ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa horta hal malay badda ma qurmin karo qalbi dhagax dana gaara laga leeyahay qalbi dhagax 3 sano oo Soomaaliya joogay farmaajana 7 bilood ayuu jiraa 2 sano iyo bar ka hor ayuu sii joogay dawladna wadanka way ka jirto dawlad la'aan ma ahayn waxaan horta waa siyaasad shacbiga Soomaaliyeed hadii aad si u fiiriso meel xun bay wax ka fiiriyaan oo hadba dhinaca wanaagsan waxba ka eegaan hadba ninkii wax ku shufta ayaa horta u taliya horta qalbi dhagax waa nin Soomaaliyeed waa nin jabhad u ololeynayo oo jabhad sargaalka ahaa magaciisana maanta ka hor wiligay ma maqal markii uu soo shacbaxay horaantii wiligay uma maqal nin Soomaaliyeed inuu yahay waa maqlay nin jabhad u soo dagaalamo waa maqlay oo ina laf ka tirsan
inuu 77 uu kamid ahaa dadkii usoo dagaalamay Soomaaliya waan maqlay laakiin magaciisa maalintaas unbaa iigu firsay markaa runta xaqiiqada aan ka hadlo dhib maba lahan horta qof muslim ah oo haddana Soomaali ah inaad aad qof kale aad u geyso oo ajnabi ah ama dawlad kale inaad horta gacanta u geliso taas diinta horta waa qalad sidaan wada ognahay 200 oo qofood ku dhawaad ayay Ethiopia soo deysay oo dawladda Soomaaliya heshiis ay wada gaareen taas ayaa rag jaanis u arkay in ma arkin oo markaas ay dawladda ay ku fadeexeeyaan dalkan wax kale ma haystaan dalkan dad baa ku dhex jiro dad baan doonaynin inuu horumar gaaro inay nabadi ka dhacdo inuu marna cayihiisa isku taago maanta dawladda Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre dawladda ugu shacbiyada badan leh waa Soomaaliya waa dawladda kalsoonida shacbiga hanatay waa dawladda ugu howlkarka badan leh marka anigu ahaan waxaan dhihi lahaa war Soomaaliyeed dantiina aqoonsada oo dawladdiina maanta waxaa la rabaa in la dumiyo qarankiina maanta dhisan waxaa la rabaa in la kala dhantaalo qarankiina maanta maanta cagihiisa isku taagay oo gobonnimadii iyo horumarkii Soomaaliya maanta u taagan har iyo habeenna waan aragnay Conis oo aan 35 sano aan lagu ciyaarin kubadda cagta ayaa maanta lagu ciyaaray kubadda cad horumarkaas caalamka iyo wada arkeen laakiin cadow Soomaaliyeed uu ka naxay kumana faraxsan ilaa haddana cid buunbuuninaysa lama arkin horumarkaas maanta qof Soomaaliyeed ama qof ayaa inta la wada Ethiopia loo dhigay inta meediyaha ama social media fadeexada maalin walba la dirtaan dawladda Soomaaliya intaas waxaa la shacbiga iyo dawladda in la isku arkeen Soomaaliya danihiina aqoonsada 27 sano ka badan ayaa dawlad la'aantiin waa inaad dawladdiina aad maanta garab istaagtaan cadowga ay ku dhex jireen waa inaad ma arkin la dagaalantaan oo aad u heelantaan maadkooda dawladda aad garab istaagtaan taasaan dhihi lahaa saaxiib waana mahadsantahay waa taa Cabdiraxiin aad baad u mahadsantahay Maxamed Shiiqa oo jooga Kaaraan wuxuu leeyahay qalbi dhagax arintiisa waa laga badbadiyay waxyaabo muhiim u ah Soomaalida ayaa jira ee lagu mashquulo ayuu leeyahay waa taa gunaanadkii ayaan jeclahay in aan xildhibaan Dalxa iyo martida kale aan siiyo ugaas Maxamed Weli halaaw koosna walaal miya dambidayna waa maya ugaas Maxamed Weli adigoo soo koobaya gunaanadkii arinta guddiga maxaa taliya tusaale aad ku biirinaysaa aan dhamaysto walaal ilaahay nabad isla dulaymayno annagu isdhiibi mayno waa dagaalamayna dhagax baan ku dagaalami jirnaa waxa weeye anoo boqorkii ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hayay hala kaco dagaalna hala galo waa tahay boqor Nuur waa maasan tahay ugaas Maxamed Weli haye xildhibaan Dalxa waa kugu soo gunaanadaya ugaas Maxamed Weli soo koob halaad ka maqan dagaalami weeyri hal xabaan iyo hadana iga maqan hadana dagaal gelaya xoolo waa laga fiican yahay wixii boqorka adiga dagaalka adiga geli weeyri laftirkeedana waxa halkaan adiga inaad u dagaal gasho adiga aad doonaysidna wixii oo dhan Soomaaliya aan ka soo qaadno waxyaga seen Soomaali dad ooga dhignaa dawlad ooga dhignaa ay ku wada badbaadi kartaa sharafteeda iyo karaamadeeda aan ka wada dhigano wax ku mashquulayno waa inaan dagaalanaa waa tahay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martida barnaamijka nagala qayb galay oo uu ka mid yahay Professor Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ugaas Maxamed Weli boqor Nuur Maxamuud Afrax nabadoon Cali Diriye Qilaawe iyo martida kale sidoo kale waxaan mahadcelinayaa dhageystayaasha raygooda ku cabiray halkan oo aad maanta fariimaha iyo telefoonkaba u soo buux dhaafinayay mowduuca oo aad u xasaasi ahaa anigoo Jimcaale ayaa idin socodsiinayay waa farsamadii saaxiibkay Maxamuud Faarax Sidow Logic tan iyo intaan dib u kulmayno barnaamijkan lamid ah waxaan ka tegaynaa heestii ummad yahay qabiil waa tahay waxaan filayaa waqtigiina noo saamaxayn heesta gunaanadka tan iyo intaan barnaamijkan lamid ku kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo nabad gel